qaladaadka ay galaan dadku marka ay rabaan in ay maalgashadaan dhulka. haddii aad iska ilaalisid qaladaadkanna waxa ay ku safgarin doontaa boqolaalkun. kusoo dhow YouTube-ka Hanti Yeelo, magacaygu waa Iid. halkan waxa aan kusoo gudbiyaa waxyaalaha ka caawin doona dhaqaalaha. nagu soo biir ayaan ku leeyahay. qaladka koobaad, qiimeyn la'aanta kharashyada. maalgashadayaashu marka ay rabaan inay iibsadaan dhul waxa aysan ku darsan xisaabta in ay jiraan kharashaad qarsoon oo aysan ogeyn oo aysan aqoon u lahayn oo kaliya ay og yihiin dadka dilaalinta iyo dadka dhulka iibinaya. kuwaasna waxa kamid ah sida cashuurta, la soo bixida xujada iyo haddii dhulkaasi uu u baahan yahay dayactir marka aad iibsato. ka warqab la'aanta shayadina hadhow waxa ay saameyn ku yeelan doonaan dhulkii hadafkii aad ka lahayd, haddii ay tahay inaad faa'iido ka samaysid oo dib u iibsid iyo haddii aad u baahan tahayba inaad mataqaanaa dhistid. waxa muhiim ah oo aan la iloobi karin in magaalooyinkuna ay ku kala duwan yihiin sharciyada u kala yaala marka dhul la iibsado. dalalka qaar ama magaalooyinka qaarba waxa qasaba in dhulka aad iibsato aad ku qasban tahay haddii aad rabto inaad calaamadaysato inaad cashuurta iyo xujadiisaba aad la soo baxdid. marka lacagtii haddii aysan ku diyaarsanayn way adkaanaysaa inaad dhulka cashuuratid ama aad calaamadaysatid. marka waxa muhiim ah qofku inuu diyaar u noqdo mar walba dhul iibsanayo maxaa kale oo la socda. tusaale ahaan ani ahaantay berihiina soo dhaafay waxa jiray dhul aan soo saaray warqadihiisii taasoo lacag ku dhawaad $1,000 aan diray. marka waa muhiim inaad ku darsatid xisaabtana. qaladka labaad, dadaal la'aan. inaad ku guuldareysatid inaad baadhid xog kugu filan oo ku saabsan hantidan. tani mustaqbalka waxa ay saameyn ku yeelan doontaa in ay shay'o soo baxaan aadan filanayn, sida tusaale ahaan inaad iska ogaatid sharciyada dhulkan, deegaanka sharciyada u yaala ee mustaqbalka la filan doono inay u ekaan doonto goobtaasi iyo isticmaalida goobtaasi. waxaa jira dhulal aan loogu talagelin in ay deegaan dadku oon ahayn deegaan oo kaliya dawladdu ay leedahay ama masaajid loogu talagalay. marka waa muhiim inaad ogaatid dhulkan maxaa loogu talagalay. dadaalkanna adigu haddii aadan samaynin cidi ku samayn mayso. intaad qurbaha joogtid, waliba dadka qurbaha jooga ayaan la hadlayaa, telefoon intaad dirsato tiraadid bal dhulka ay soo eega, waa muhiim inaad adigu eegan karisid ama aad u dirsan karisid dad tayo leh. qaladka saddexaad, indha iska tirka qodobka goobta, locationka in aad iska indha tirto. adigu haddii aad qof dirsato tiraadid dhul ii soo iibi, locationka aad rabto laga yaabaa in uusan ku soo heli karin ama aadan awoodi karinin waqti xaadirkaasi locationka aad rabto lacagteedii inaadan haynin. marka waxa aad muhiim ah markaad dhul maalgashanayso inaad ogaan karayso goob nooceeya ayaan ka rabaa iyo maxaan u rabaa dhulkan. tanna waxa aad muhiim ah marka aad rabto inaad dhulka iibsatid maxaa deegaankan uu leeyahay ama goobtan ay leedahay. ma leedahay adeeg, ma leedahay transportation, ma leedahay hospitaalo, ma leedahay meherado iyo dukaanado aad mataqaana ka heli karisid waxyaalaha aad u baahan tahay. dhammaan ogaanshaha meesha dhulka uu ku yaalo iyo waxyaalaha la socda goobtan ama locationkan waxa ay sahli doontaa mustaqbalka faa'iidada uu yeelan doono hantidani. qaladka afraad, u malaynta faa'iido degdega. laga yaabaa dadka badankoodu in ay lacag u soo qaataan ama ay lacag u safgaristaan si ay u maalgashadaan dhul iyagoo oo u malaynaya in faa'iido ay degdeg uga samayn karayaan maadaama ay maalgashadeen hanti maguuraana. taasi waa qalad. hanti walba ama dhul walbood iibsato macnaheedu maahan inuu faa'iido samayn doono. dhul walbaaba faa'iido ma sameeyo, taana ku darso xisaabta. isagoo hanti haddana waxa laga yaabaa inuu khasaari karo. tani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dhaqaalahaaga, carqalad iyo dhibaato iyo stressna ay kugu abuuri doontaa. qaladka shanaad, xaqiijin la'aanta lahaanshiyaha sharciyada iyo dhulka asal ahaantiiba. dhul marka aad rabto inaad maalgashato ayaa iskale, sharcigiisii ma haystaa, ma dhaxal buu ku helay, yaa kale oo la leh. waxyaalahan waa wax aad u muhiima oo aad u baahan tahay inaad ogaatid ka hor inta aadan maalgashan. adigu haddii aadan sahaanta dhulkii joogin meesha laga iibsanayay oodan soo xaqiijin karin arrimaha noocan, waa muhiim qofka aad u dirsanso inaad si fiican isaga fiirisid. waayo waxa laga yaabaa qofkani in uusan aqoon u lahayn qodobadana soo sheegay ama uu dhayalsadaba. dadka badankooda dalkii joogana waa sidan. waa muhiim markaa qofka aad u dirsanso inuu qof yahay qof aqoon u leh, tayana leh, firfircoon, waxyaalahanna kugu soo eegi kara, hantidana u maalgashan karaya ama u soo maalgashan kara sida tiisi oo kale. dhulka is ahaantiina waxaan uga jeedaa inaad ogaatid carrada dhulka uu leeyahay, ma niisba, ma carro casba, ma dhagaxba. qaladka lixaad, iska indhatirka ciladaha goobtan. marka aad rabto in aad iibsato dhul goobta uu ku yaalo waxa laga yaabaa oo ka qarsoon haddii aadan hayn gaar ahaan qof deegaana in aadan ogaan karin ciladaha ku hareereysan dhulkan ama goobtan. waxaa jira tusaale ahaan goobtu ma leedahay tog, ma leedahay meel mataqaana qashinka lagu ururiyo oo looguba talagelin in ay noqoto wado, ma jirta cilado ay leedahay goobtani. talada aan ku siin karo waxa weeyaan marka aad rabto inaad maalgashato goobta dhulka uu ka yaalo tag
كهر أنت أيسن إيمان دلال كي وحكا إيبين دولك كي GPS كإنجنير دي وحيالها صدق أنت أيسن إيمان كهر أديو تك صونفيري أجار كاس أردن محاك جيرة دت كنا ورئيسه قالتك تطبعات قرشين لأنت هايس شذا دولكن دتكم مركا أي دول مالك شذا وحي ليانون إن أي إنديسكا هايستان أي ملكو دايان إداران شان سنة كبعدي أي نديو إيبن دونا فائدين وانكسمين دونا مايا هايس شذا وحلص على الصدق كله خرشات waxay noqon kartaa waxyaalahaasi zakatul maalki waxay noqon kartaa cashuurti hadii aad dhulkan ugu talagashay dhul ganacsi oo u baahantahay inaad dib u iibsid oo u gaaro nisaabkii loogu talagalay waxa qasaba inaad ka bixisid si aad lacagtaada u xalaaleysatid zakadii ku waajibkayd marka waa inaad ku darsatid sanad walba zakada aad ka bixin doonto waa imisa dhulkan waa imisa inay jiraan kharashaadkan oo ku sugay iyaguna qaladka sideedaad ka warqab la'aanta marxaladda suuqa mar walba ma ahan markii ugu habooneed ee aad iibsan karto dhul mar farbadan waxa jirta aysan ku haboon inaad dhul iibsatid waxa saameyn ku yeelan kara suuqa dhulalka kala iibsiga sida siyaasadda dhaqaalaha deegaankaas ugu sugan aad rabto inaad wax ka maalgashato iyo suuqa dadku sida ay ugu jiraan qaladka sagaalaad ugu dambeeya bixinta xad dhaafka ah marka aad rabtid inaad maalgashatid dhul waxa la socda kharashaad qarsoon oo aysan cidi ku sheegeen waliba ku dhex jira dhulka iibsigiisa inaad ku guul dareysatid inaad gorgortantid inaad dadkii la macaamishid inaad la hadashid inaad la heshiisid oo tiraahdid may sida wax kuma iibsan karayo qaladaadka noocani hadii aad iska indhatirtid waxa laga yaabaa inaad bixisid lacag xad dhaaf ah sida tusaale ahaan qiimaha dhulka uu ku taagan oo lagaaga iibiyo qiimo ka sareeya ama qiimaha suuqa uu ka taagan yahay oo kale adiguna uma baahnid qiimo dhulku uu ku taagan yahay inaad ku iibsatid waxaad u baahan tahay qiimaha dhulka aad ku iibsanaysid inuu ka jaban yahay qiimaha suuqa uu taagan yahayba lacagahan isleeyahay dadka badankoodu way bixiyaan oo qarsoon oo aysan dad far badan ku sheegin waxa weyn bixinta lacagta dilaalka yaa bixinaya cadadku waa imisa percentage ogaanshaha sheeyadan waxa ay ku sahli doontaa in aad gorgortan fiican aad samaysid ka hor inta aadan iibsan ama dealkaasi uusan dhicinba ka warqabkan adigana wuxuu faa'iido kugu leeyahay mustaqbalka dhulkan marka dib iibsid faa'iidada uu dib kugu soo celin ayaa fiicnaanaysa ka fogaanshaha sagaalkan qalad ee aan soo sheegay waxay ku saf garin doontaa lacago aad u fara badan runtii oo kaaga bixi laha maalayacni adigana waxa rajaynayaa inay ku cajibisay hadii aad xiisaynaysid mowduucyada noocan sida maalgashiga real estate-ka fadlan commentiga noogu reeb waxa aan isku dii doonaa mustaqbalka in aan soo galiyo oo soo badiyo mowduucyada noocan waa markii xigta waa anigu iida waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh